السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوادا فاسي channel أصحابتا نقول حيران مانتا وحانيني وضع 8 علامات oo lagu garto inuu qofku jacayl hayo. waa calaamada koobaad mar walba qofka si qalbiyan aad ula hadashaa jeceshahay aad mustaqbalka iyo nolosha ka rajaynaysid. mar walba oo eegtid niyadaad waxay dareentaa inuu qofkaagii yahay raaxaad ku dareentaa agtiisa. si walba oo dadka kale isku furha tiraadid iskuma furi kartid, waayo qofkani dadka kale wuxuu kaga duwan yahay inuu mar walba ku dhageysto, dhagihiisa ku siiyo, mar walba niyada uu ku dhiso, hore u socoo ku yiraahdo waxaad uga sheekanaysaa hadday waxsan tahay iyo hadday wax xun tahayba. si kastaba uu garabkaaga u joogsado. calaamada labaad waa inaanad waa isaga unbaad indha u leh ambayada, waayo si kasta oo dad qurux badan u aragtid, si kasta oo dadka qurux badan ka style qurux badan ka hadal fiican ka hadal qurux badan had u aragtid, haddana qofkii qalbigaaga ku jiray qof aan ahayn indhahaagu ma soo jiidanayaan, li'anno qalbigaa wax arkee indho wax ma arkaan. calaamada saddexaad waa inaad qofkan mar walba aad jeceshahay inaad laabteeda amba laabtiisa aad ku jirtid, mar walba aad garab fadhidid, mar walba aad jacayl iyo farxad aad dareentaan, mar walbood is aragtaan. calaamada afraad mar kasta waxaad isku daydaa inaad qofkaagan aad ka farxisid. sideed uga farxinaysaa? inaad wax u geysid hadiyad oo kale, gifti oo kale, amba meel ha u wada baxdiin, mar walba aad safar u qorshaysin, dalxiisaad wada tegtiin, mar walbood wada joogtiinna farxad han dhammaanayn ha dareentiin, qalbiyaashiina isku soo dhawaadaan. calaamada shanaad qofkan waxaad ka heshaa inaad mar walba had israacdaan. meel haddaa u baxaysid, waxadaa soo iibsanaysid, haddaa soo shopping garaysanaysid, haddaa alaab soo qaadanaysid, inaad qofkan ka haysatid uu garabkaaga joogaad mar walba jecesha. calaamada lixaad qof waxaad noqotaa han sirba lahayn. wax walba oo qalbigaaga dhibaya ood khabaysanaysid, waxaad jeceshahay inaad qofkaad jeceshahay hala qaybsatid, ood wejigiisa ka akhrisatid, ood markasta xitaa hadduu qofkaagu kuu sheeganin amba adigu had u sheeganin oo wax ku dhibayaan, qofka ku jecel waa qof wejigaaga ka garta, amba qofkaad adigu jeceshahay wejigiisaad ka garanaysaa amba wejigayga. calaamada toddobaad waxaad mar kastaba aad fokiska saartaa intiisa wanaagsan amba inteeda wanaagsan. indhaba uma lihid qofkan xumaantiisa. qof adduunka dhammaystiran oo mukamili ma jiro, laakiin indho uma lihid intiisa xun. waxaa keliya indho u leedahay waa wanaagiisa, qualitigiisa, talentigiisa, waxa uu ku wanaagsan yahay ayaad indho u leedahay, li'anno qalbigaagaa jecel. mana rabtid qofka inaad ku weydid inaad dabageshid, amba qof asliyan ha jeceshahay qofaad dabagelaysid ood mar walba daba joogaysid maaha. calaamada sideedaad waa qofka dareen xaddaafaad u haysaa. macnaheedu yahay dareen waxaa rabtaa waqtigaaga dhan isagaa u hurta, markasta dad isgarab jooga, isgarab taagan, macaan iyo qaraadhbooda dhandhamiya, nolosha wejiyadeeda ay kusoo wajahayso kala hortaga, gacmahoo lays qabsado, garab laysa siiyo. axbaabi maanta intaaba noogu joogtaa 8 calaamadood ay ku garan kartid inaad qof jeceshihiin. waxaan iga codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan si aad ula socotaan barnaamij walba oon soo gelino. asalaamu calaykum.